ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay markii kuwaasir rasmi uga hadlay carqaladeyntii nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh ee ku sameeyay safarkii ra'iisul wasaare hore ku aadi lahaa wadanka Koonfur Afrika. waxa uu Roble sheegay in la dhibay oo caqabad loo dhigay safarkiisa. waxa uu intaasi ku daray in ay caqabadaasi taagneyd kowdii bishan ilaa 20 bishan. qaar ka mid ah dadka u raaci lahaa safarkan ayuu sheegay in ay qaarkood ay sidaas ay ku baaqdeen. Roble waxa uu ku goodiyay in markii uu xamar uu ku laabto in uu nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh kala xisaabtami doono ficilkaas, taasi oo loo fahmay goodi siyaasadeed. sida la wada og yahay, qof waliba oo haysta baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliga haddii uu rabo inuu dibadda u safro ama uu fiisa ka dalbado safaaradda, waxa uu u baahan yahay warqad ay soo qorayso wasaaradda arrimaha dibadda ee loo dirayo safaaradda uu siyaasigaasi uu fiisaha ka dalbanayo. warqadaasi kama caawiso inuu fiiso helo, ee sidoo kale waxay u sahashaa inuu maamuus gaar ah ka helo dalka iyo dowladda uu u socdo. Roble markii warqadaasi loo diiday waxaa la sheegay inuu isticmaalay baasaboorkiisa Swedishka ah. jadwalkii isaga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa waxba iskama bedelin, laakiin waxa uu waayay maamuuskii uu heli lahaa ra'iisul wasaare hore. Roble waxa uu sidoo kale Xasan Sheekh iyo nidaamkiisa uu u soo joodiyay laba talo. mid koowaad waa inaan dadka loo dowladeenin. ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay nidaamka maanta ka jira Soomaaliya inaan dadka loo dowladeenin, balse si dowladnimo ah loola dhaqmo, taasi oo fasilkeeda uu yahay inaan awoodda dadka loo adeegsan ee dadka loo adeego iyadoo la raacayo qawaaniinta dalka. qodobkan waxa uu muuqdaa carad daba socota warqadii loo diiday ra'iisul wasaare hore Soomaaliya. qodobka labaad ee Roble waxa uu ka hadlay doorashada dalka, iyadoo ra'iisul wasaare hore la hadlayay in uu ku jiro damaca madaxweyne. waxa uu xalay ka sheegay Koonfur Afrika in uu wuxuu farmaajo ka diiday uusan ka yeeli doonin Xasan Sheekh Maxamuud doorasho wada ogol ah oo waqtigeeda ku dhacda. qodobkan waxa uu daaha ka qaaday damicii Roble ee doorashada soo aadan. Roble waxa uu farmaajo ka diiday waxa ay ahayd inuu tashto doorasho uu kaligiis leeyahay, haddana waxa ay ku socotaa Xasan Sheekh Maxamuud. taasi oo kale ayuu ku mashquulsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna tani ka dhigan tahay in ay labada nin Roble iyo Xasan Sheekh Maxamuud si kala fogaadeen. madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu hadda dadka ugu neceb yahay qofkii yiraahda qabo doorasho wada ogol ah oo ummadda ay u siman tahay oo waqtigeedana ku dhacda. haddaba sidee u aragtaa adiga?